dhinaca waxa iga fadhiya bullo oo aad ka garanaysan magaca iyo qiimihiisa magac laga miskiin ma ninkii yaqaan baa yaqaan kelmadda diraac dooga iyo dayrta iyo diraacda saddexdaas waa mataano diraac oo ah doorka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan joognaa kuuliyadda qaranka Soomaaliyeed ee magaalada Carmo waxa garabkayga tagan taliyaha kuuliyadda sidoo kale najmo cudoon bullo oo ina safar dheer u soo gashay inay timaado Carmo soo dhawaada hoyga nabadda Carmo ku soo dhawaada hoyga nabadda isdhexgalka ee degmada Carmo ku soo dhawaada hoyga nabadda ee Carmo isdhexgalka iyo asxaabtiisa Carmo magaalada gobonimada magaalada sharafta ku suganahay duleedka Carmo halkaana lagu soo dhaweeyay si sharaf leh kuma soo koobi kara magacyadiina laakiin aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina waxaan leeyahay dhalinyaro qurux badan oo bilis iyo ragba iskugu jirta baan soo dhaweeyay hadii ilaahay idinkeeda leeyahay ku dheeraamayo waqti baan ugu socda qorax baan u taaganahay noo tahay galabta inaan halkan ku soo dhaweyno magaalada Carmo ah magaaladii nabadda dhalinyaro abwaaniin fanaaniin majaajilaystayaal caan ka ah guud ahaan geyga Soomaaliyeed iyo inta af Soomaaliga ku hadasha ay aad wada garanayaan najmo cudoon bullo diraac official مصلح عبد الرحمن dhamaantood waxaan leenahay ku soo dhawaada magaaladii nabadda ku soo dhawaada degmadii Carmo ku soo dhawaada magaaladii Beeldayaasha soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim mar labaad farxad bay noo tahay inaan team nagu qaaliya halkan ku soo dhaweyno ku soo dhawaada waan leenahay xarunta nabadda ee Carmo iyo xaruntii Beeldayaasha waxaan leenahay teamka ma ablaableen karo team najmo cudoon iyo diraac iyo bullo iyo maslax iyo cabdiraxmaan iyo dhamaantiin ba waxaan leenahay ku soo dhawaada gacmo furan farxad bay noo tahay inaan halkan idin ku soo dhaweyno bulshada reer Carmo waa idin haweyn tahay waxaatiin dhalinyaro hal door Soomaaliyeed waxaan leenahay ku soo dhawaada magaaladan oo kamid ah magaalooyinka Soomaaliyeed aad kale idinka taageero ladikana jecel yahay insha Allah waxaan isu heli doonaa waqti badan inagoo caawa ku wada caweyn doona xuska sanad guuradii 22aad asaaskii Puntland oo dhamaanteen ba farxad inoo ah waxaan idin leenahay in wada dabaal degno farxadna nugula ciid wanaagsan anu waxaan u maleynayaa in ay tahay markii ugu horeysay oo aan arko inay wada kulmaan ciid iyo sanad guuradii Puntland waa aad wax loogu farxo dhalinyaradeenana aad baan ugu faraxsanahay dhamaan aad baan u mahadsantihiin ku dheeraan may hadalkaas kuma ficinin Puntland ku wareejinahay assalaamu calaykum waa in salaamo ilmaadeerayaal meel walba aad joogtaan aad baan ugu faraxsanahay maanta in lagu soo dhaweeyo Carmo waxaan leeyahay dhalinyaro qurux badan oo bilis iyo ragba iskugu jirta baan soo dhaweeyay hadii ilaahay idinkeeda leeyahay ku dheeraamayo waqti baan ugu socda qorax baan u taaganahay waa sanad guuradii Agoosto waa maalin ciida marka waxaan leeyahay maanta waa farxad aad u Carmo magaalada gobonimada magaalada sharafta runtii anigu deegaanada Puntland khaasatan Garowe ma dhaafo waxa way Garowe baa ku soo dhaweeyaa Garowe baa jooga dhamaantiin intan nagu soo dhaweysay sida sharafta leh aniga Garowe sida ay si lamid ah dhamaan sida igu soo dhaweyseen iyo si lamid ah ayaa igu soo dhaweyn doona insha Allah waxaana sharaf ii ah in aan sanad guuradan kooda August aan joogo Carmo sidoo kale waxa sharaf ah inaan ciidkan aan ku ciidi doono oo farxadda la qaybsan doono walaalay reer Carmo sidoo kale waxa maalintan la kulantay waa maalin Jimco ah dhamaan waxaas kulansaday maalmo khayr iyo maalin farxadeed sharaf bayna noo tahay inaan maanta joogno Carmo oo Carmo ku suganahay sidoo kale waxa sharaf gaar ah in bullo oo ka soo socdaashay safar dheer ay ku marayso deegaanada Puntland oo ah dal iyo dad barasho runtii waxa la yiraahdaa ugumaan yaani kamalihin ee uga soo horeeyay maanta qof kasta Carmo jooga
dib ugu uga soo horeeyay laakiin maanta isaga ku soo dhaweynaya sharaf bayna noo tahay bulo waxaan ku leeyahay anoo reer Carmo matalaya mar labaad ku soo dhawo deegaanada Puntland sharaf bayna noo tahay inaan meel kasta oo Puntland kamid ah uu inaga istaqardho waa soo marna maanta laakiin waqti wuxuu noo saamix waayay inaan saacada joogno dhamaan aad baa u mahadsantiin anoo idin kala qaadeen sharaf baa leedin hablaha sida quruxda badan waqtiga u soo galiyay u soo dadaalay iyo wiilashan sharafta leh wiilashan sharafta leh dhamaantiin aad baa idin salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh الرحيم maanta waxa sharaf weyn oo ah oo aan halkan ku soo dhaweynay dhalinyaradii haldoorka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay xafladii quruxda badnayd 22 guuradii ay ka soo wareegtay asaaska Puntland dhalinyarada dhinacyada fadhiya oo maanta inagu la qadeynaya magaalada Carmo hoolka cusub runtii aad baan ugu faraxsanahay haldoorkii Soomaaliyeed oo meel fog nooga yimid sidaas ka muuqata dhinaca waxa iga fadhiya bullo oo aad ka garanaysaan magaca iyo qiimihiisa oo meel fog uga timi xafladan inay ka soo qayb gasho bullo waa weli bullo kama bixin bullo waxa weeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed hal abuurka gudaha Soomaaliya caanka ka iyadoo noo iman baan dhaqaanay marka waxaan leenahay bullo aad iyo aad baa marsantay in maanta noogu timaado halka aan farax gelinaysa markii koobaad labaad saddexaad afraad aan ugu soo noqotay najma oo ah sida ka muuqata xidigihii ama haldoorkii sidoo kale mudug star waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay 100% inaan soo dhaweyno najma iyo bullo oo ah gabdhaha Soomaaliyeed quruxda badnaa oo masaafo inta lagu soo maray inay iyaguna xafladan ka soo qayb galaan waxa sharaf noo ah inaan maanta soo dhaweyno inkastoo aanan doorkay naga mudnaayaan aanan siin laakiin haddana in yar baanu isku daynay inaanu wax yar ka xusno wixii aan ka gaabino ka xunahay diraac magac laga miskiin ma ninkii yaqaan baa yaqaan kelmadda diraac dooga iyo dayrta iyo diraacda saddexdaas waa mataano diraac oo ah haldoorka dhalinyarada Soomaaliyeed waa ka muuqata sida afkiisa u dhalaalay ilka daafka leh ba carabkiisuna u dhalaalay marka waxaan rabaa diraac inaan iraahdo diraac oo ogtay inaan oday dhaqameedahay soo noqodkaaga waxaan rabaa inaan ila xidid waan halkan ya insha Allah waa ballan qaad Soomaa ballan insha Allah waa maqlaysaan intaas marxad ka haldoorka dhalinyarada Soomaaliyeed waay runtii aad baan ugu mahadcelinaya qofka dhalinyarada oo doonaya Soomaalinimada Puntland waa hooyadii Soomaaliya waa isu keenay bulshada Soomaaliyeed saas darteed dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxay jecelihiin inay qayb ka noqdaan wada jirka Soomaalinimada aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waa haldoorka waa hal abuur waa waxa ku dhan Soomaalinimada oo dhan marka si gaar ah ugu mahadcelinayaa diraac oo magac qiimo leh Soomaali weyn bullo iyo diraac waa magacyadii hore qadiimka iyo cudoon najma cudoon ma sha Allah tabarakallah najma waa xid qurux badan waaye oo Soomaalidu dhan wada jeceshay haddaan sii wado oo midagta ka sii raaco Cabdiraxmaan oo ah wajigiisa ku yaala si gaar ah oo dhow ugu mahadcelinaya xalay xafladii aad u jeedaan quruxda badnayd abwaankii iyo fankii Soomaaliyeed shiday abwaan kala kiciye magacana wala baxay shida kala kiciye abwaan maslaxada Soomaaliyeed oo dhan buu meesha u yimi Muqdisho ka yimi diyaarad buu soo raacay inuu Puntland xafladaha oo dhan ka qayb galo abwaanku xalay rag badan baayin waxay dhahan ku soo celi haasti ku soo celi marka taas waxay muujinaysaa murtidiisa iyo fankiisa abwaan waxaan ku leenahay halka ka wad marka naga noqotay Carmo ka noqotay oo garow tigtid u sheeg reer Carmo inuu yihiin dadka fanka iyo jecel dhalinyarada maxaan ku raahdaa Soomaaliyeed oo qiimeynaya Soomaalinimadu waa geed weyn oo harsanayno waxaan rabaa mar labaad si guud inaan idinku mahadceliyo team Galmudug team Mudug team Puntland iyo team Soomaaliyeed Soomaali weyn ha noolaato ma leenahay mar labaad iyo mar saddexaad
waa ka xuma inaan qadada idinka dahayo xusuus markaana soo xusuustaan marna idin hilmaamayna annaga ninka halkaa jooga si gaaran ugu mahad celinayaa wariye dadaal carmo haddaa maqashaan waa dadaal haddaa maqashaan waa carmo ku xisaabtama dhallinyarada iyo tabadhaa waxa weeyaan isagu dayrasitaa la dhahaa waa number 1 kama kaco aad u mahadsan tahay gudoomiye maxamed ibraahim runtii waan kaa qabnaa soo dhaweynta iyo qada sharafta aad noo samaysay waana ku faraxsanahay inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo kasii badan waan rajeynaynaa inaan nimaano degmada Carmo degmadii nabadda waana noo sharaf inaan joogno oo aan kaga qayb galno sanad guurada kooda August runtii waxa lama ilaawaan ah sida sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen reer Carmo waxa weeye maadaama ay yihiin gobolkii nabadda waxa weeye qof kasta waxa oo jooga reer Carmo wuxuu diyaar u yahay horumar iyo nabad waana sababta loo yiri waa gobolkii waa degmadii nabadda waana ii sharaf inaan joogo Carmo dhamaantii isku duuban waxaan safarka dheer u soo galay inaan Carmo nimaadno oo kooda August aan ka qayb galo anagoo isku duuban oo meelooyin kala duwan aysan jirin oo nolol ka yaray oo laga qabtay balse waxaan si u yeeshay inaan nimaadno Carmo waxaan ku soo dhaweysay qurux badan haday yihiin booliska haday yihiin gudoomiyaasha iyo haday yihiin dhammaan shacabka reer Carmo waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa dhammaan dhalinyarada sida khaaska ah noo shaqaysay noo soo dhaweysay wariye dadaal uu ka mid yahay tabadha fagande dhamaantiin waxaan ka mahad celinaa sida sharafta leh waxa weeye gudoomiye maxamed ibraahim waa ka gudoomiye waxa weeye marka labada aan soo laabtana waxa weeye degaya gudoomiye marka Carmo waxa weeye maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay gudoomiye waan rajayna gudoomiyaal badan oo waxa weeye maxamed ibraahim la mid oo kale inay noo soo baxaan insha Allah aad baan mahadsantahay waxaan joognaa magaalada Carmo oo aan u nimay inaan kaga qayb galo sanad guurada kooda August alxamdulillah si fiican bay noogu soo dhamaatay waxaan ka mahad celinaynaa dhammaan reer Carmo haday yihiin gudoomiyayaal haday yihiin taliyayaal iyo laamaha amniga dhamaantood oo noo fududeeyay goobaha iyaga inaan tagno waxaan sidoo kale ilaaweyn walaalahayga qaaliga dhalinyarada reer Carmo oo suura galiyay inaan waxa weeye dhahaan magaalada idinka malihin waa idinka soo horeeyay waxaan joognaa kuuliyada qaranka Soomaaliyeed ee magaalada Carmo waxa garabkayga tagan taliyaha kuuliyada sidoo kale najmo cudoon bullo oo iyana safar dheer u soo gashay inay timaado Carmo oo waxa weeye kala qayb qaato kooda August sidoo kale laamaha amniga way joogan taliya aad baan kaaga mahad celinaynaa waxa weeye ogolaanshaha aad noo ogolaatay inaan kuuliyadan nimaadno waliba barnaamijka ku sameysano waxa weeye aad baan kaaga mahad celinaynaa soo dhawaada dhulkeeni waa dhul Soomaaliyeed way dhul kala xiga maaha runtii kulliyadda ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay ka dhaxaysaa Soomaali weyn qof kasta Soomaali wuu iman karaa askari kasta Soomaali booliis wuu iman karaa waa meesha aad aragteen farxadda iyo quruxda iyo qiimaha ka muuqda awoodeeda iyo sharafteeda waxa iska leh ciidanka booliska Soomaaliyeed kulliyadda Carmo ururka dhalinyarada degmada Carmo oo dhamaantood kaalin weyn ka qaata sidii kulliyadda loo horumarin lahaa markaas anaga waxaan diyaarinahay inaan soo dhaweeyno cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarinta kulliyaddan waa xudunta dawladda federaalka ee ku leedahay maamulada Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland ku soo dhawaada ciidamo badan baan u tababarnaa abaal baa kulliyaddan ku leedahay ciidamada booliska Soomaaliyeed oo dhan waayo waxa weeye in ka badan 7,800 askari baan tababarnay oo hadda ka shaqeeya meelaha ugu muhiimsan ee dalka waxaan u sheegaynaa marka in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan kuna soo beeraan ciidanka booliska oo kale sida Najmo oo hadda codsatay in lagu daro ciidanka booliska Soomaaliyeed waa soo dhaweynaynaa Najmo ciidankeeda ما يديك تبقى كيف خطأ هذه نجمة كارث مرة كسر دليرة Soomaaliya dalkiisana wuxuu qabto waa soo dhaweynayna ku soo beeraad indhaha ciidanka booliska Soomaaliyeed kana qayb qaato horumarinta iyo bilicda kulliyadda booliska Soomaaliyeed ee Carmo sidaad ugu mahad celiseen magaaladan anagana bahad baan celinaynaa sababtoo waxa way magaalo aan dirisnahay way magaalada sharafta badan waa magaalada nabadda xalay baa loogu magac daray inay noqoto magaalada nabadda iyo isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaa marka sidaas waxa cadeynaysaa inaan la kala xigin Carmo oo dad gaar ah uusan lahayn laakiin ay leeyihiin dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta oo joogo waanu hambalyeynaa maamulka dhalinyarada degmada Carmo iyo maamulka degmada iyo dadweynaha Soomaaliyeed ku nool degmada Carmo sida kaalinta fiican oo kaga qaateen magac bixintaas loogu niyooday oo isimada iyo odayaasha iyo dhalinyarada iyo waxgaradka dhan ay u baxsheen magaalada nabadda iyo isdhexgalka ummadda Soomaaliyeed soo dhawaada dhalinyarada aad u soo dhudin aad baan kaaga mahad celinayaa taliye waan ku faraxsanahay inaa ciidanka igu dartid
insha Allah waan noqon doonaa tii dalkeeda anfacda ku dheeraan mayo aad baan kaga mahadcelinayaa oo ku faraxsanahay inaan ku suganahay kuliyadda ciidanka Soomaaliyeed ee magaalada Carmo insha Allah mararka xigana waa soo booqan doonaa بسم الله الرحمن الرحيم ilma adeeryaal waan salaam meel walba joogtaan waxaan leeyahay magaalada Carmo waa magaaladii ugu horeysay oo asiri abayaal meel ka laga ma daawada miyaa waxaa sharaf noo ah inaan joogno Carmo guri boqortooyo waxaan joognaa kuuliyada aniga walaashii Najmo Cudun Najmaye wallahi meeshu waa meel aad u diyaarsan Carmo si fiican baan lagu soo dhaweeyay shacabkeeda dhalinyaradeeda madaxdeeda aad iyo haddana waxaan ku suganahay kuuliyadii to askar baa gaaraya askari waxaan joognaa kuuliyada wali waxaan hadda galeynaa inaan idin tusno ama idin sawirno kuuliyada in la soo tuso oo taliyuhu uu natuso runtii waa noo sharaf waxa weeye taliye dhiirigelinaya dhalinyarada inay dhalinyaradu yimaadaan Carmo waa noo sharaf aniga Najmo Cudun iyo Bullo Cabdiraxmaan dhamaanteed waa noo sharaf iyo Maslax koox fanaankeenna balkuuliyadana galeynaa qaybaheeda ayaan tuso